رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. baabka wuxuu ka hadlayaa ataxdiiri in laiskaga digo min iidaa'i asaalixiina, saalixiinta in la dhibo, saalixiinta dhibkooda in laiskaga digo, wadacafa dadka daciifiinta ah ee taagta daran oo tabarta yar in la dhibo laiskaga digo, walmasaakiini iyo masaakiinta in la dhibo laiskaga digo ayuu baabka ka hadli doonaa. qaala allahu tacaala, rabbi wuxuu yidhi waaladiina kuwa yu-duuna dhibay almu'miniina ragga mu'miniinta ah waalmu'minaati haweenka mu'minaadka kuwa dhiba bikayri maktasabuu waxayan galabsanna ku dhiba. ruuxa hadduu waxa uu galabsaday waaba la gartay, sharci baa jiro, sharcigana ka oofinay. laakiin dembi ayan galabsan mu'miniinta dadka ku dhibo ku maaga, faqad ixtamaluu waxay xambaarsadeen buu rabbi yidhi buhtaanan been uumasho wa ihman iyo dembi mubiinan cad bay xambaarsadeen. dadka mu'miniinta dhiba dulmiyo gardarana ku maaga, raggoodii iyo dumarkoodiiba, kuwa waa dad xambaarsaday been uumasho iyo dembi cad ee muuqda weyaan. wa qaala tacaala, rabbi wuxuu yidhi fa ama alyatiima ama ogoonta falaa taqhar ha qasbin, ha dhibin, waxayan kari karin ha ku samayn. ogoonta karaamey ee darajey, janno iyo wanaag baa lagu helaa. ogoonna waxaa la yidhaahdaa ilmo waxa weeyaan oo ka dhintay aabbahoodina yahay iyagoon weli qaangaarin. ilmaha ogoonta nebi maxamed baa lagu leeyahay ha qasbinoo ha dirqinin, warka dadka loo wadana inagii wayaan. ogoon ha dhibina. wa ama asaa'ila ka baryootamayana isaguna falaa tanhar ha gulguulin, ha canaananin. qowl xasan kula hadal baa lagu leeyahay. haddaad wax heli kartana sii, haddaadan heli karin hadal wanaagsan. qowlun macruufun sadaqa buu subanuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. wa ama saa'ila ka baryootamaya ee waxa weeye isaguna falaa tanhar ha canaanan, ha ku qaylinin, ee waxaad u heli kartana sii, haddii kale hadal wanaagsan. wa ama alaxaadiidu markaanu eegno fog ee baabka kaga hadlaya saalixiinta inaan la dhibin, ducafada inaan la dhibin, masaakiintoon la dhibin, axaadiista ka hadla fa kathiiratun aada bay u tiro badan yihiin. laakiin gedigoodii imaamu nawowi ma soo qaadan, qaar ka mid ayuu baabka u soo qaatay. minha axaadiista waxaa ka mid ah xadiidu abi hurayrata radia allaahu canhu. baabkan baabkii ka horeeyey baanu ku soo marnay, casharkii ugu dambeeyey ahaa. fi lbaabi qabla haadaa, baabkan haddeer aanu ku jirno baabkii ka horeeyey ee baabu calaamaati xubi illaahi tacaala lilcabdi waalxathi cala atakhalluqi ee ahaanu ku soo marray. xadiistiisi ugu horeeyey bayna ahaayeen. muxuu ahaa xadiiska? man caadaa lii waliyan, rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama, ruuxa ee la colaytama weligeygii ee maaga ee gardaraysta
faqad aadantuhu axadka waxaan ogeysiiyey buu rabbi yidhi bilxarbi inaan la dagaalami doono. waa xadiiskii shalay aanu soo maray baabkii u dambeeyey. wuxuu rabbi leeyahay xadiiskuna waa xadiisulqudsi, rabbi baa hadlay. ruuxa la colaytama weligeygii, weliga ilaahna waanu tilmaamnayo axad kastoo iimaan laga helaya taqwo waliyullaahi weyaan. alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun. man hum kuwa waa dadna aladiina aamanuu wakaanuu yattaquun lahum lbushraa fi lxayaati addunya wa fi laakhira. waa kuwa rabbi uu ku tilmaamay sida suurata yuunus buu rabbi subxaanahu watacaala ayadaha u kaga hadlay awliyada markuu tilmaamayay. waa kuwa iimaan iyo camal suban laga helaya taqwo weyaan. marka dadka ee awliyadaydii dhiba ee maaga ee gardaraysta waxaan ogeysiinayaa buu rabbi yidhi aan la dagaalami doona kuwa. ruux rabbi la dagaalamayna rabbi dagaalkii cid iska reebi kartaan jirin, isjira wayaan marka ee dadka hamaagina. wa minhaa waxaa ka mid axaadiista xadiidu sacd bni abi waqaasin radia allahu canhu baa ka mid ahoo xadiiskaa saabiq ee soo hormaray fii baabi mulaatafati alyatiim, baabka lagaga hadlayay ilmaha aqoonta in loo dhimrado loo naxariisto baabkiisi waanu soo marnay. baabka maxaa ku jiray? nebiga qowlkiisii sala allahu calayhi wasalam uu abubakar ku yidhi lain kunta aqdabtahum, kuwa haddaad ka caragelisay asxaabu sufa ee raggii ahaa bay waxay yidhaahdeen iyagoo tilmaamayay ninka la dhihi jiray abu sufyaan, qurayshba waayeelkoodii ahaa. markay arkeen bay xanaaqeen ee waxay yidhaahdeen suyuufta alle waxqabadkii laga rabay ma ayan qaban, gaalkan buwadu weli u nool yahay. gaalkan buwadu u nool yahay inkastoo abu sufyaan gadaal dambe soo islaamay. suyuufta alle waxqabadkii laga rabay weli ma ayan gudan. abubakar baa halkaa joogay oo maqlayay buu wuxuu ku yidhi warwarka miyaad u leedihiin lishaykhi qurayshin, quraysh waa yeelkeed oo abu sufyaan oo kale miyaad warkaa u leedihiin? uuna ka tagayo tiibaa la xumaatay warka uu ku yidhi ku adkeeyay dadka. rasuulku uu tagay wuxuu yidhi kuwii baan ka maqlayo iyagoo abu sufyaan warkaa ku yidhi, anna warka ayaan ku yidhi. rasuulka alle wuxuu ku yidhi oo ma caragelisay lain kunta aqdabtahum, dadka hadday kaa caroodeen laqad aqdabta rabbaka, rabbigaagii baad caragelisay oo ogow. dad baa caragelintoodii waxaa lagu xiray oo adoo rabbi carageliyey oo kale. hadday kaa carooda rabbi baa kaa caroonaya weyaan. asxaabu sufa bay ragga ahayeen, bilaal iyo suhayb iyo khabaab ibni alarita iyo camaar ibnu yaasir iyo reeraha wayaano ducafadii iyo masaakiintii wayaan. dadkaad haddaad caragelisay baa abubakar lagu yidhi ilaa baa caragelisay oo ogow baale. markaa wuu soo orday wiri walaalahaygii ma idin carageliyey? may bay yidhaahdeen oo gafara allahu laka, dembigaagii alla hadaayo. waanu soo marnay axaadiista. marka dadka waa in iska jira, qof waliba afkaagii aad ku taagtaagto adibaagii afkaagii muslimiintu waa inay ka badbaadaan. qofka muslimka la oran karo waa kee? almuslimu waa qofma almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi. muslimku waa qofka muslimiintu ay ka badbaadaan afkiisa iyo addimihiisa. waxaad doonta sheeg ma aha, sidaad doonta dadka u dhib ma aha. qofkan muslimiintu ka badbaadin muslim ma aha. dembiguna aada buu u weyn yahay. gabar baa nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu ag xusay agtii waxaa la yidhi heblaayo alla salaad badana soom badana. habeenkoo dhan bay soo jeedaa, salaaday la soo jeedaa, maalmahoo dhan bay soontaa, laakiin tu'dii jiiraanaha bilisaaniha, carabkeedii bay deriska ku dhiftay. deriskan ka badbaadin, carab dhirir, salaad badni iyo soom badni safka hore, laakiin af xumo bal ka waran baa layidhi gabadha xaalkeedii salaada badan oo soonka badan. hiya fi nnaari buu suubanuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. gabadha ahlu naar weyaan. dadku haddayan kaa badbaadin ilaana wax kugu fali maayo. gaar ahaan muuminiintu dhibkoodii aada buu u daran yahay.
muslimka waa ka muslimiinta badbaadiya af iyo adimaba ku badbaadiya haddaygan taajirin lagaa nabadgalin islaamnimaan jirin ciqaabkuna aada buu u daran yahay wacan jundub ibni cabdi weli baabkan gudaha ugu sii jirnaa wacan jundub ibni cabdillaahi radia allahu canhu qaal wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi man sallaa salaata subxi salaada subax ka dukada ee ruux dukaday salaad subax fa huwa kaa salaada subax dukaday jamaacana ku dukaday fii dimmati illaah maganta allo ku jira ilaa magantiisi buu kaa ku jira fii amaani illaahi wa damaanihi waya ilaa damaanadiisii amnigiisii buu ku jira haddeer badado falaa yatlubannakum allahu min dimmatihi bishayin ilaa magantiisi ruux galay war ruuxa ilaa yuusan wax idinkaga doonanin qof salaad subax dukaday ha dhibina waya af iyo adimaba ha ku dhibina maganta ilaah buu ku jira amni ilaah buu ku jira damaano ilaah buu ku jira ruuxa waxa weye haddaad taawataano ilaah baad u dhacdeen wayaane ilaah yuusan wax idinkaga raadsan qofka dhibkiisi fa inahu man yatlubuhu fa inahu arinku waxa weeyaan man ruuxa yatlubuhu ilaah raadsada min dimmatihi dimadiisii bishayin wax ka raadsada ruuxuu maganta u ahaa ood waxyeelaysay ilaahna markuu wax kaaga doono ninka inuu kaaga aaro yudrikhu horta ilaah wuu haleelaya ruux ilaah raadsanaya ma fakanayo ma dhuuman karo mana baxsan karo ilaa intuu haleelo ayuu huma yakubahu afgambi ugu ridaya calaa wajhi wejigiisibuu wuxuu rabbi ku ridayaa fii naari jahannama intuu rabbi doonto ruux rabbi doontayna ma fakan karo markaa buu afgembi naar ugu ridaya isjira wayaan dadka cibaadada iyo saalixiinta ee waxa weeyaan oo dhibkooda iskaga jira kaga badbaadi hawaartoodii ka kabsan maysaan muslim baa xadiiskaa wariyay baabka aada buu u gaabnaa baabka xiga ayaan u gudbaynaa inshaa allah baabu ijraa'i axkaami annaasi cala aldaahiri wa saraa'irihim ila allahi subxaanahu wa tacaala baabkan wuxuu ka hadlayaa in la socodsiiyo dadka xukunkoodii daahirka qofka waxaa lagaa rabaa daahirkiisa inaad ku xukunto sirta hawshaadi maaha inaad baarbaarto lagumaba dirsan gudihiisa inaad baarto hawshaadi ma aha qofka wuxuu kuu muujiyo unbaad ka qaadan hadduu wanaag muujiyay wanaaggaa baa laga qaadan waxa u muuqdana xumaa daymay qalbigan ka fiicanay laga yeelimay wax jira maa waxa dad baa dadka ku sira ma qalbigaygaad ogtahay qalbigaaga hadduu fiicnaan lahaa daahirkaagana wuu fiicnaan lahaa baa lagu leeyahay diintanada qofka daahirka laga qaadan qalbigiisi shaqo ilaah weyaan baabka wuxuu ka hadlayaa ijraa in la socodsiiyo axkaami nnaasi dadka xukunkoodii cala daahiri baa lagu xukminaya daahirkaad ka qaadan karin wa saraa'irihim sirtoodina ila allahi tacaala ilaah bay ahaatay wixii sira gudahan soomaha ilaah baa kula xisaabtami doono qaala allahu tacaala rabbi wuxuu yidhi aayaday ku jirto suurata tawba fa in taabuu gaaladii la yidhi muslimiinta waxaa lagu amray marka hore inay gaalo la dagaalamaan la dagaalama baa layidhi kuwa gaalada la dagaalama ha ka harina markaa buu rabbi yidhi fa in taabuu gaalada hadday toobad keenaan shirkiga iyo kufriga iyo gaalnimaday ka noqdaan dagaalkuma la wadaya may kowma tahay wa aqaamuu salaatana shardi wayaan hadday tukadaan ruuxan tukanaynin waa lala dagaalamaya wa aatawu zakaata zakada hadday bixiyaan ruuxu zaka inuu bixiyo diidayna waa lala dagaalamaya saddexdan haddaad ka heshaan fakhalluu sabiila iska daaya jidkooda aayad kale fa ikhwaanukum walaalihiini wayaanba waaba walaalkaagi dhiiggiisii baan kuu banaaneen xoolihiisii baan kuu banaaneen cirdigiisii iyo sharaftiisii baan kuu banaaneeno walaalkaagii muslima weyaan marka intayba waxa weeyaan hadday toobad keeneen salaadna ay tukanayaan zakana ay bixinayaan qalbigoodii waxa ma daalacan kartid inay run ka tahay suuragal inay been ka tahayna suuragal laakiin daahirkaad ku qaadan qofku
fakhalluu sabiilahum iska daaya buu rabbi dagaalka joojiya way hala dagaalamina kuwa walaalihiini wayaan. ama alaxaadiidu وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك اللي وحو يرين أمرت والله أمري رسولك اللي رسولك دوية والله أمري إلى با أمري ويان معنوه الله أمري ويان أن أقاتل الناس ضدك إن لا دغال ما الله أمري رسولك اللي dadka inaan la dagaalamo ayaa lay amrayo tan ilaa goorman dagaalka wadaya xataa yashhaduu ilaa ay ka qiraan an laa ilaaha ilaa gar lagu caabudo inuusan jirin ila allahu ilaa keligii maahaane wa anna muxamedan nebi muxamedna inuu yahay rasuulullahi rasuul ilaa soo diray wayuqiimu salaata dadka salaada inay ogaan ay tukadaan wayuutu zakaata zakada ay bixiyaan ilaa inta ay ka sameeyaan haddii kale inaan la dagaalamo seeftu ay dul saarnaataa lay amray ilaa ka rumeeyaan oo nebi muxamedna rasuul alle inuu yahay salaada ay tukadaan oo zakadan ay bixiyaan faidaa facaluu dalika arrinka hadday sameeyaan laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah laga helo salaad tukasho laga helo zaka bixin laga helo acaasamuu minii dimaa'ahum buu suubanuu yidhi dhiigoodii way iga ilaashadeen wax ii banaan ma aha dhiigoodii inaan daadiyo wa amwaalahum xoolahoodina lama qaadan karo ilaa bixaqi lislaami waa masalo kale xaqulislaam ruux waxa weeyaanu la qisaasi rabo dad buu dilay waa la dilaya salaad buu dukan waayey waa la dilaya zakuu bixin waayey qasab iyo birqin baa loogu qaadaya taa waa masalo kale laakiin ruuxa intuu wanaagsan yahayba waxba lagu fali maayo sir soomaa wixii u qarsoon wixii qalbiga sooma ah wa xisaabuhum cala allahi tacaala bay jirta inagu daahirkaanu ka eegaynaa salaad ma dukaday zaka ma bixi ilaah ma rumey rasuulkiisii ma raxsan yahay faraha laga qaadayo dagaal baan jir dhiiggiisii baan banaaneen xoolihiisii baan banaaneen haddii taa wixii marka maxay tahay waxa weye qisaasnimo u timaada waa baabkeedii ta waa laga oofin wixii kale soomaan loo jeedin xisaabtooda allah loo daynaya muttafaqun calayhi weli baabkan gudaha kusii jirnaa wacan abi cabdillaahi طارق ابن أشيم رضي الله عنه قال وحو يري سمعت وحان مقلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله ينكم مقليو يقول يسقوله من قال روح يرادا لا إله إلا الله قف كستا ارقى قفك يرادا وكفر بما يعبد من دون الله انا ككفر يوكو قالوا وحل عاودا الله كسوك wuxuu doonaba ha noqdee xaruma maaluhu qofka maalkiisi waa xaaraam lama qaadan karo wa damuhu dhiigiisii lama daadin karo xaaraan weya waa ruux muslima wa xisaabuhu cala allahi tacaala wuxuu sir ku sameeyana iyo gudihiisii waxa ku sugan xisaabtiisii allay dul saaran tahay kaa ilaah baa kula xisaabtamaya ama sharcigu inagu daahirka inaanu ka eegno unbaa lana amray muslim baa xadiiskaa wariyey weli waxaan gudaha ugu sii jirnaa baabkii loogu hadlayay in dadka axkaamtoodii daahirka lagu socodsiiyo daahirka unbaad ku diriirsiin unbaad ka eegi wixii sir ah ilaah baad u daynaysaa wacan abi macbadin almiqdaad ibni alaswadi radia allahu canhu qaal miqdaad ibni alaswad wuxuu yidhi qultu nabiga ayaan ku yidhi qultu lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle ayaan ku yidhi ara-ayta rasuul allow bal iga waran in laqiitu haddaan la kulmo rajulan nin min alkufaari gaalada ka mida qof gaalada ka mida haddaan la kulmo bal ka war qofkaasoo faqtatalna aanu dagaalanno fadaraba marka uu garaaco dhufto isagii markaanu dagaalanay ixdaa yadaya labadaydii gacmood midoodii buu ku garaacay oo bisayfi buu ku dhuftay faqataca marka uu gacanta iga gooyo bal ka waran buu yidhi yaa rasuulallah qof gaalada ka mida haddaanu dagaalanno marka seeftiisuu gacanta igaga dhufto gacmahaygi mid ka mida gacanta igaga gooyo huma ka gadal laada mini igaga dhunto ka gadal bishajaratin geed uu igaga gabado dagaal baa socdo seef buu igu dhuftay markaa buu iga ordayoo geed buu ku gabaday faqaala markaa buu igu yidhiyo aslamtu lilah ilaah baan isu dhiibayo
waan muslimay islaam baan noqday oo laa ilaaha ila allahu marka ay yidhaahdo aaqtuluhu yaa rasuula allahi bacda an qaalaha ereyga markuu yidhi anna hadda fursadaan u helo gacan buu iga gooyay anna waan dultaaganahay markaa buu yidhi laa ilaaha ila allah ma dilaa mise saan yeela aaqtuluhu yaa rasuula allahi bacda an qaalaha ereyga markuu yidhi aslamtu lilah aw laa ilaaha ila allahu maruu yidhi ka gadal ma dilaya faqaala subanu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam laa taqtulhu hadilin laa taqtulhu hadilin diinta daahirka ruuxa laga ega inuu xitaa been u yidhi way dhici kartaa laakiin waxaa hawshaadi ma aha laa ilaaha ila allahu mar hadduu yidhahdo dilkiisi kuma banaana faqultu waxaan idhi buu yidhi saxaabigii layidhi hadilin yaa rasuula allah qataca ixdaa yadaya labadaydii gacmood mid buu iga gooyay hadilin maxay tahay gacantuuba iga gooyay uma qaala daalika markaa buu yidhi bacdamaa qataca gacanta markuu iga gooyay buu yidhi aslamtu lilah faqaala sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi laa taqtulhu hadilin mar labaad weyaan haysu dilin baa layidhi fain qataltahu hadirba ogow baa layidhi haddaad disho fa inahu isaga bimansilatika mansiladaadii buu ahaanaya qabla an taqtulo intaadan isaga dilin maxaad adiga ahayd qofkaad ahayd baad noqon tafsiirkiisa waan arki doonaa qeybta xigta wa inaka adigana bimansilatihi baad ahaanaysaa qabla an yaquula intuusan oran kalimatahu alatii qaal ereygu hadeer uu yidhi ereyguu yidhi intuusan oran waxa weeyaan siduu isagu ahaa baad ahaanaysaa adna intaadan dilin saad aheed buu isagu ahaanaya macnihiisi waa maxay macnaha dhegayso wa macnaa uu yidhi annahu bimansilatika isagu markaad disho mansiladaadii buu ahaanaya isagu mansiladaadii buu ahaanaya macnuhu waxa weeyaan ay macsuumu dami maxkuumun biislaamihi weyaan wuxuu noqonayaa nin dhiiggiisa ilaashan oo islaamnimona lagu xukmiyey hadduu mar laa ilaaha ila allahu yidhi intaadan dilin oo kale saad aheed useedeed nin muslim baad aheed aan dhiiggiisii la gala aan banaaneen booskaagiibuu markaa joogaa marka la leeyahay waa sida waa qof dhiiggiisii aan dulmi lagu daadin karin weeye maadaamuu muslim uu noqday wa macnaa annaka bimansilati adna darajadiisii baad noqon haddaa disho macnuhu waa maxay mubaaxu dami bilqisaasi waya dhiigaagii baa banaanaanay in lagu qisaasto liwarahatii baa ku qisaasanay caruurtiisi iyo dadkiisiiba ku dilanaya adna dhiigaaga xalaal buu noqon sababta waxa dhiigaaga xalaal u noqonaya ruux muslim baa dishay laa annahu lagama wado bimansilatihi fi lkufri darajadiisii baad ahaanaysaa isagu gaal buu ahaa gaal baad noqon lagama wado taa lagama wado macnuhu waxa weeye isagu wuxuu noqonayaa ruux dhiigiisu ilaashan yahay ile muslim buu noqday dulmi baad ku dishay adna waxaad noqonaysaa ruux dhiiggiisii hadar banaanaaday qisaas baa laguu dilaya ila nin muslim baa dishay baa lagu leeyay gaal ma aadan dilin waa lagu dilaya adna taa ugu waya macnuhu wallahu aclam ilan qofka daahirka laga xukmin waanu arki doonaa axaadiisa weli soo socdo ayaanu arki doonaa ka yaab badan qofka hadduu ereygaa yidhaahdo daahirkaad ku qaadan keli gudihiisi laguma dirsanin wacan usaamata bnu zaydin radia allahu canhu qaala usaama wuxuu yidhi bacahanaa waxaa na diray rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle ayaa na diray usaama bnu zayd xibu rasuulillaahi wabnu xibihi weyaan dadoo nabiga aada u jeclaa wayaa dadka u fiirsada ila alxuraqati qabiilka la yidhahdo reer xuraqa waa min juhayna weyaan dadka ayaa lanoo diray gaalo weyaan in weerar lagu qaado la dagaalamo usaama wuxuu yidhi fasabaxnaa waxaanu ku waabariisanay alqowma qowmka calaa miyaahim dhaansigoodii biyahoodii iyagoo xoolahoodii waraabsanay ayaan biyihii baan ku dul qabanay buu yidhi meeshii baan ugu tagnay walaxiqtu waan haleelay buu usaama yidhi ana aniga warajulun iyo nin min alansaari ka mida nin reer madiina ah ayaa waxaan haleelnayoo rajulan minhum qof iyagii ka mida ordaya baxsanay kii baanu dababursanay falamaa khashiinaahu seefta markaanu dul saarnay markaanu waxa weeyaan weerarnay
aanu hareereynay aanu dul aadnay buu qaala yidhi laa ilaaha ila allah kii gaalka ahaa mar alla markuu noo gacan galay oon soo qabsanay buu yidhi laa ilaaha ila allah fakafa canhu alansaariyu ninkii ansaariga ahaa uu ka joogsaday usaama wuxuu yidhi watacantuhu birumxi qof yar buu xamaasad baana haysayoo riwaayo kale waanu arki doonaa waa qof muslimiin badan le oo laayay buu ahaa kaa usaama wuxuu yidhi warankan ku muday buu yidhi aan ku durdurayoo xataa qataltahu ilaa aan ka dilay xataa qataltuhu ilaa aan ka dilay buu yidhi ilaa aan ka dilo warankaygii baan ku muday buu yidhi falamaa qadimna almadiinata markaanu madiina nimid balaga dalika annabiya sala allahu calayhi wasalam warkaabaa nebiga loo sheegay qof baa inta weerar lagu qaaday ee marka la dultagay buu yidhi laa ilaaha ila allah kii ansaariga uu ka joogsaday usaama waxa ugu tubaantiyayo dib uguma noqonay ilaa uu ka dilo rasuulka alle usaama wuxuu yidhi faqaala lii rasuulka alle wuxuu aniga igu yidhi yaa usaamoy aqataltahu bacdamaa qaala laa ilaaha ila allah war usaama oma waxaad dishay maruu yidhi laa ilaaha ila allahu ka gadaal miyaad dishay qultu waxaan idhi buu yidhi usaama yaa rasuula allahi rasuul allow inamaa kaana mutacawidan wuu ku gabanayay inaan la dilin buu diidana dhabka ma ahayn laa ilaaha ila allahu buu ku gabanayay dhabka ma ahayn faqaala suubanuu wuu ka diiday wuxuu yidhi aqatalta war usaame ma dishay ninka bacdamaa qaala laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahu maruu yidhi ka gadal miyaad dishay famaa zaala yukariruha suubanuu kama uusan zulin inuu ugu calcalina war usaama ma dishay bacdamaa qaala laa ilaaha ila allah xataa tamanaytu waxaan tamaniyey buu usaama yidhi annii lam akun aslamtu qabla dalika alyowm maalintaa horteedii inaanba soo islaamin islaamnimo maalinta inay ii bilaabato goortaa baan tamaniyey culayska waxa weeyaan ay leedahay inaguna waxaanu soo marnay tad la leeyahay waa lagu dilayaa ashhaado aan soomaalinahay tadba ashhaado waa lagu dilayaana loo dili jiray aana qabiil baana laysu dilayay dhaqama aanu naqaan weya aqataltahu bacdamaa qaala laa ilaaha ila allah usaama waya warka in badan u ku alcaliya weli riwaayooyinka waanu arki doonaa sii socda muttafaqun calayh wa fii riwaayatin faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle wuxuu usaama ku yidhi aqaala laa ilaaha ila allahu waqataltahu oo laa ilaaha ila allahu miyuu yidhi ka dambe miyaad dishay qultu waxaan idhi yaa rasuula allah inamaa qaalahaa khawfan min asilaax hubku ka cabsanayay silaaxdu iska ilaalinayay buu yidhi cabsi baad u geysatayoo dhabka ma ahayn suubanu wuxuu ku yidhi afalaa shaqaqta calaa qalbihi ma qalbigiisi baad jeexday maxaad u jeexi weysay qalbigiisi xataa taclama inaad ka ogaato aqaalaha am la inuu dhabnimo u yidhi inay cabsi u yidhi inaad garato qalbina maadaa dilaacin kara macnaha waxa weeyaan qalbigiisina ma dilaacin kartid oo daahirka ruuxa laga qaataa maxaa kuu geysay dhab inuu ka yidhi afka keli maxaad ugu xugmin weysay famaa zaala yukariruhaa suubanuhu kama uusan zuulin inuu ku alcaliyo aqataltahu bacdamaa qaala laa ilaaha ila allahu miyaa dishay xataa tamanaytu waxaan tamaniyey buu yidhi annii aslamtu yowmaydin maalinta inaan soo islaamayba alxuraqa uu yidhi bidami alxaa'i lmuhmala xa waxa weeyaan dhibic loo yeelinoo la godo wa fatxi raa'i ra'dana la kordhowo xuraqa la yidhaahdo batnun qabiil wayaani min juhaynatana u dhashay waa alqabiila almacruufa weeyaan qabiilo macruufa reer juhayna la yaqiinay weeyaan wa qowluhu uu yidhi mutacawidan wuu magangalayay ay muctasiman biha min alqatli weeyaan waxa weye dilku kaga baqay maani laa ilaaha ila allah wuxuu u yidhi magangal wayaan uu magangalayaan lagu dilin laa muctaqidan laha miduu ictiqaadsanaa ma aha miduu ictiqaadsanaa dhabnimo kama aheen markaabaa na dilay buu yidhi markaabaa lagu yidhi maxaad qalbigiisaad u dilaaceen weysay oo markaad ka aqrisatood ka ogaato inuu run u yidhi ama inuu beenkay ee u yidhi qalbigana wax la dilaacayn kara ma la ogaan kara waxa ku jiro
وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه ولباب كان قدها قصي جرنا أحاديث إسلام الصمد أويان وقد جودي هلا عليك وضع هلا يعني جندب ابن عبد الله رضي الله عنه وحيري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه بعث وحو الدري بعثا جيش بودري جيش عيدا بودري من المسلمين كمدا إلى قوم تدبون ودري إن وير اللقوقة دول لدغالمو من المشركين كمدا وإنهم إياغا مركا جيش كمسلمين تتغي كوا قاعدة وتغي التقوا وحي لكل من جيش كبير لكل من وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين مركا نمبا وحا جري جري مشركين تكمدها إذا شاء مركو دونو أن يقصد إنه أقصده إلى رجل قف من المسلمين كمدا قصد له أقصد جري فقتله ندل جري تلك كفر الربنا يقاتنك قف مسلمين تكمدا انتو قادو marka waxa weeyaan u xambaartamo busoo dilay jiray weerarka ku qaado in muslimiin badan buu sida ku laayay ninka marka ninka dhibka badnaa muslimiinta laayay dad baa u gaatamay isaguna dad baa daba dhigtayo inay qofkan ay u aaraan muslimiintu ninka ay dilaan muslimiintu laayay wa anna rajulan nimba min almuslimiina kamida isaguna qasada u qasday ruuxa qaabku ku dili lahaa فقتله ندلي مركز ذنب انتو اقات ميبو دلي وكنا وحانو اهانجر نيبو صحابي غايري نتحدث كوا كشا كيسا ننكا قفكا دلي انه أسامة بن زيدين وها أسامة بن زيدين وياي ودعوة يدر وكري فلما رفع عليه السيف أسامة مركو سيفت رواية ورم بيت المامتي رواية السيف بيت الماميسا سيفتا مركو الدل ساري وقال ننكيري لا إله إلا الله فقتله أسامة ما مقلنا وركا أولى الدلي أسامة أولى الدلي فجاء البشير كي بشارين ييبا يمد مدينة مركا اللون نقضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمد فسأله رسولك أخبار بكوي دي دعدي يتغالدي سيؤدعين وأخبره أشاقي وركبوا أشاقي سنوه حتى أخبر وحو من مركز ذنبه خبر الرجل قفكي للدلي وركيسي المسلمين تلاقي مركز هوري هي كيف صنع صدو يالي مركز الله إلا ويرري إلا الدلي نقطيري وكل واقع أسامنا الدلي مركز النبي قال له شغي فدعاه أسام ويري فسأله دعوة بك حقيق صنع ويديي فقال وحو صوبنو كويري لما قتلته ما حدود الشيء روح لا إله إلا الله ويري سوف كان كل شيء وابنحي فقال وحو أسامة يري يا رسول الله أوجع في المسلمين تحنون جيينك مسلمين تحنون جيي وقتل فلانا وفلانا هول ليس قاد دلي انتو دلي بولي وترتري مسلمين تحنون جيي هول ليس قاد دلي وسمى له نفرا كوح بأمك عابي كابو دلي كمبو دلي كابو دلي وإني حملت علي مركا من ويرريبو لأن أن أحمبر تميو أن ويرريبو يري ويرر بانكو قادي سقيبا ويرري فلما رأى السيف مركو سيفت أركي بو قال يري لا إله إلا الله سيفت مركو أركي بو لا إله إلا الله من إبا ذنبك يا رسول الله رسولك قال انت دورك دنكم الصعب وركا دن وعبسبا اوكي سيدات بدن بولاي كم بويري انت واركي ماي رسولك قال مروي وحول يا هاي اقتلتهم الدشي ومنك مية الدشي قال وحول نعم هو اندلي قال صوبا وحكويري فكيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه لا اله الا الله قيامات تيتبا دالك تكقل الدونتا ما عاد كفل ما عاد كهذه الدونتا أديك لا إله إلا الله انت أذكر قلي الدونتا وليس كوركا بالإيقا فكيف تصنع ما عاد كسمين انت تكقلي الدونتا بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة يرى فكرك كويسا دونتا انت تكقلي الدونتا لا إله إلا الله
qaala wuxuu usaama yidhi yaa rasuula allah istakfir lii haddaan gafaynaa dembi dhaafii weydiin qaala suubanuu uu leeyahay wakayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allahu idaa jaaءat ywma alqiyaama laa ilaaha ila allahu intaad ka gale xitaa haddaan kuu dembi dhaafo laa ilaaha ila allahu intaad ka gale weli usaama ta'wiil buu leeyahay u fiirsada ruuxa wuxuu u dilay gaalnimo u dilay muslim waya isagoon dadka muslimiinta u qasda dilkoodii maxaad u malay usaama weli ta'wiil la taaban karu leeyahay ninka gaal buu ahaa muslimiin badan buu laayay aad ka qaadan karto caqligaaga inuu ku gabanayo taa baa weli lagu haystaa qofkii muslim dilkiisii u bareeray maxaad u malayn kartaa kayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allahu idaa jaaءat ywma alqiyaama fajacala wuxuu gudagalay laa yaziidu calaa an yaquul subanuu inuusan kordhinayn inuu yidhaahdo kayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allahu idaa jaaءat ywma alqiyaama laa ilaaha ila allah hadday timaado yowma alqiyaama intaad ka geli doontaa warkaa buu ku celcelinay isaguna uu leeyahay yaa rasuula allahi yaa rasuula allah istakfir lii muslim baa xadiiskaa wariyay qofka daahirkaa laga eegaa diintanada sirtu allah loo dhaafa daahirkaad ku xukmin karin baabkiisii baan weli gudaha ugu sii jirnaa xadiiskii u dambeeyey baabka ama casharkaba u dambeyn doono haddii aanu wadno can cabdillaahi ibni cutbata ibni mascuudin radia allahu canhu qaal wuxuu yidhi samictu cumara bna alkhaaabi radia allahu canhu cumar ibn lkhadaab baan ka maqlay buu yidhi yaquulu isagoo leh cumarba wuxuu yidhi ina naasan dad kaanuu waxay ahaan jireen xilliga nebiga uu noolaa sala allahu calayhi wasalam yu'khaduuna bilwaxyi baa lagu qaban jiray fii cahdi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam zamanka nebiga uu joogay waxyigaa lagu qabanaya macnuhu waa maxay ciriya dhul baa isu xirnaa koodii munaafiqa waa la soo saari jiray aayado intay yimaadaan hebel iyo hebel iyo hebel munaafiqiin waya haddar waxyi ma jiro maxaa lagu garan ka munaafiq waxyi tilmaamo aayado tilmaamta ma jiraan maxaa lagu garan cumar wuxuu ihi waagii nebiga sidaaba ahaan jirtay hadeer soo ma ah wa ina alwaxya qad inqataca waxyigu wuu go-ay waxyigahee wuu go-ay wa inamaa na'khudukum waxaanu idinku qabanaynaa alaana hadeer soo ma ah bimaa dahara lanaa min acmaalikum acmaashiini waxay noo muuqato waxa ay noogu muuqatoon idinku aragno khayr iyo shartaabaa laydinku qaban markaa buu cumar wuxuu yidhi faman adhara lanaa khayran qofka khayr noo muujiya sirtu inagu hawshanada maaha gudahan howl ilaah weeyaan qofka khayr noo muujiya aamanaahu waanu aminaynaa waqarabnaahu waanu soo dhawaysanaynaa daahirka ruuxa laga ega haddaan daahirkiisi wanaag aanu ka aragno waanu aminaynaa waanu soo dhawaysanaynaa walaysa lanaa min sariiratihi shay-un sirtiisi iyo gudihiisi waxba nagama gelin hawshanadaba ma aha hawl lanoo dirsadayba ma aha allahu yuxaasibuhu fii sariiratihi qofka sirtiisi hadday u fiican tahay hadday u xun tahay allah la xisaabtami doono sidoo kale wuxuu cumar yidhi waman adhara lanaa su-an qofka xumo noo muujiya xumo aanu ka aragno lam na'manhu amini mayno walam nusadiqhu rumayn mayno wain qaala haba yidhaahdo fii sariiratihi xasana gudaheygii baa fiican qalbigeygii baa fiican laga yeelima horta taa waa been inta badan la ogyahay qofku hadduu halkan ka fiicnaada daahirkana wuu fiicnaanaya gudaheygii baan ka fiicanahay sirid waya dadka la siray wax jira ma aha qofka daahirka laga ega hadday run tahay gudaha uu fiican yahay daahirkuna ka fiicnaan lahaa qofka marka hadday xumo laga arko salaad la-aan mitaaanba qofka diintanada u fiirsada qofka hadduuna yidhahdo maka aniga kusoo tukadaa sharciga balligaysta lama arka isagoo jamaaca ku tukanaya war ani makan ku tukadaa seeftaa la marinaya ruuxa walow maka ku tukashadiisiiba run ha noqoto maka ku tukashadiisiiba ma jirta ha noqoto xukunka diinta iyo sharciga waxaa weeye daahirka ruuxa laga ega ma tukada waa tukada hadduu ku yihahdo kugu qanciyana daahirkaad ujeedana salaad laa inuu yahay daahirka ruuxa loo qabanaya hadduu wanaag muujiyana wanaaggaabaa laga rumaysanaya hadduu xumo muujiyana xumaha unbaa loo qabanaya wallahu aclam
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.